sida la og yahay mudadii u dambeysay waxa socday howlgalkii wajigii saddexaad oo hilaac qaybtiisii ugu dambeysay oo qaybihii muxuu ahaa qayb ka mid ah oo aanu bixiyay baacsi iyo baadigoob nimankii khawaarijta ahaa oo wareegayay buuraha loogu tagayay meelaha ay ku jireen oo la baadigoobayay inaysan awood badan lahayn way muujinaysaa arrintaas waxa way si fiican baa guul looga gaaray waa meeshii ugu dambeysay oo ay deganaayeen waa garanaysaan Miraale muxuu ahaa waxyeelo badan baa ku gaartay dhimasho iyo dhaawac badan bay ku yeesheen kolley taba hadday iyagu qarsadaan gogasha tabi doonta wixii ayaga ka baxa wax soo noqon doona maaha wax fursada ka bixi ka baxay annaga wixii yaroo na gaaraana waa guriga iyagii baan ku dhimanaynaa isagaan ku dhaawacmaynaa wax dhiban naguma haysa iyo culaysa isla markaana waxa imaanaysa bedel tiro badan oo annagana bedela marka waa soo afjaraynaa insha Allah hadii Allah idmo wali raadkoodii baan daba joognaa kama hari doono god kasto ay galaan baan uga daba tagaynaa waana la guuleystay waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha Puntland ciidamada difaaca dawladda Puntland waxay maalin walba iyo habeen walba guura iyo galab carro ugu jiraan inaad idinku u noolaataan farxad iyo karaamo iyo sharaf iyo sumcad iyo wanaag insha Allah waa sidaan ballan qaadnay waa sidaan ku dhaaranay waana la gaari doonaa hadii Allah idmo maalmaha soo socdana insha Allah waxaad maqli doontaan guul aad u weyn oo kaleeto oo maxaan ku yiraahdaa meelihii ugu dambeeyay lagu soo afjari doonaa hadii Allah yiraahdo arrintaas sidaas ay ahayd aad iyo aad baa u mahadsantiin